بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لا قيمة بدن وأنا دين سلامي. سلام كدب وحربا إن أصحابتي ذكر يسوي دي برنامج دي في لاتريجا أما جرين كاتكا قفل بسلو يقانا أو بختي نصيبك sida loo hareeyo iyo qaabka ugu fudud oo qofka u hareysan karo ayaan runtii saaka rabaa inaan idin faa'iideeyo soo dhawaada insha Allah waxaan gelaynaa Google-ka kadib halkan ayaan waxaan ku qoraynaa DV program marka saan ugu qorno waa midkan ugu horeeyo electronic diversity visa program Department of State kadib kana ugu ku dhufanaynaa markaan saan ugu dhufano oo runtii website-kan uu keenayaa website-ka ugu midka saxan oo maxaa laga hareysan karo kadib markaan ku dhufano waxaan tegaynaa qaybtan ugu horeyso oo ku qoran begin entry qaybtan cagaaran ayaan ku dhufanaynaa so then markaa saas ugu dhufano wuxuuna keenayaa qaybtan code-ka ayuuna keenayaa code-kan ayaan ku qoraynaa TX R M D P W P W then markaasaan ugu qorno samidaan leenahay okay qaybta ugu horeyso part 1 kuna keenay wuxuu ku leeyahay last name-kaaga ku qor first name-kaaga iyo middle name-kaaga oo waliba passport-kaaga ah last name-kiga ku qoraya last name-kiga waa Bakal okay first name-kigana waxa waaye Faisal okay middle name-kiga ku qoraya halkanna waa Mohammed then qaybtan markaas aan usoo buuxino qaybta labaad oo imaanaynaa male and female hadba waxaa tahay aniga waxaan ku qorayaa male okay then qaybtan kale wuxuu ku leeyahay birth date waqtiga dhalatay bisha maalinta iyo sanadkaba bisha waxaan leenahay bisha 6aad bisha May maalinta sagaalaad okay sanadka 1998 okay qaybtan kale wuxuu ku leeyahay city where you were born meesha aad ku dhalatay magaalada ama goobta waxaan leenahay Baidawa district okay qaybtan waxaan gelinaynaa Baidawa district okay qaybtan kale wuxuu ku leeyahay country where were you born okay wadanka waa Soomaaliya qaybtan waxaan gelinaynaa Soomaaliya sorry qaybtan waxaan gelinaynaa Soomaaliya okay qaybtan kale oo eligibility for DV program inta yes ku ahaato wax weyn maahan okay qaybtan kale wuxuu kugu soo celiyay qaybtii ugu horeysay Bakal qaybtan middle name-kaagi okay first name-kaaga Faisal okay middle name-kaaga waxaa leedahay middle name-kaaga gelinaysaa saan markaa u gelisid qaybtan wuxuu ku weydiinayaa passport number-kaaga waxaa leedahay P00 775 4557 okay qaybtaas passport expire waqtiga passportka uu dhacayo waxaa leedahay bisha 7aad labaatankeeda sanadka 2024 leedahay then wuxuu ku leeyahay country authorized issues wadanka laga bixiyay passportkaas waxaa leedahay qaybta
oo se wadanka laga bixiyo baasaboorka waa Soomaaliya. qaybtan waxaan gelinaynaa Soomaaliya. Okay, intuu imaw qaybtan waxba kama bedelayno sideeda ugu tahay. Okay, qaybtan waa qaybta ugu muhiimsan oo qaybta waxa waaye sawirka laga rabo ama kaleba sawirka oo maxaa lahay oo lottery-ga oo sawirkaaga ah. qaybtan waxaa laga rabaa sawirka inay gelisid hadaa sawir oo lottery picture haystid, haddii oo maxaa lahay sawir aad telefonka iskaga qaadid oo macquul ah. qaybtan waxaa gelinaynaa sawirkiiga. tusaale ani sawirka lottery-ga aan soo galay waa midkaan waa picture-ka loogu talagalay size-ka lottery size-kiisa midkaan aan soo galay waa midkaan aan gelinaya. Okay, qaybtan waa qaybta ugu muhiimsan waa mailing address addresskaaga. tusaale waxaan leenahay hadda addresskayga waxaa gelinayaa taleeh kilometer 4 tusaale wadada dabka waa addresskaaga waa meesha ugu muhiimsan oo lagala soo xiriiro. Okay, taleeh kilometer 4 wadada dabka. Okay, city town city aan leenahay Muqdisho. qaybtan intana banaadir aan gelinaynaa. qaybtan koodka Soomaaliya gelinaynaa 252. inta waxaa leenahay Soomaaliya gelinaynaa halkan iyadana Soomaaliya gelinaynaa qaybtan. Okay, qaybtan wuxuu ku leeyahay country where you live today wadanka hadda aad ku nooshahay oo maxaa lahay markaas present aad ka tahay. tusaale Ethiopia haddaad joogtid, haddaad Kenya aad joogtid, haddaad Turkey aad joogtid. Okay, qaybtan waxaan leenahay waxaan joognaa tusaale waxaan joognaa waa Russia joognaa leenahay. inta waxaa gelinaysaa numberkaaga oo maxaa lahay markaa haystid. tusaale numberkayga Soomaaliya aan gelinayaa 2526157609076. Okay, qaybtan markaasaa uu geliyo qaybtan wuxuu leeyahay emailkaaga geli. emailkaaga qaybtaas gelinaysaa. qaybtan emailku ku leeyahay waxaa gelinayaa emailkay tusaale bakaal 2006@gmail.com. Okay, qaybtan markaasaa uu geliyo qaybtan kale iyadana gmail confirm uu leeyahay. waa gmailku waa shay ugu muhiimsan oo hadhow lagala soo xiriirayo ama maxaa lahay lagooga soo dirayo wixii xog ah iyo information. Okay, qaybtan markaa gmailkayga aan geliyo gmail.com. Okay, qaybta hoose u imaw. qaybtan wuxuu ku leeyahay what is the highest level of education you have achieved. waxbarashada heerkaaga intuu gaarsiisantahay. haddaa primary aad tahay, haddaa high school aad tahay, haddaa university degree tahay, haddaa master degree tahay. Okay, qaybtan waxaa gelinayaa had tusaale aniga high school degree aan gelinayaa qaybtaas. Okay, qaybtan markaasaan usoo dhammayno qaybtan kale ku imaanaynaa. qaybtan wuxuu ku leeyahay what's your current marital status. ma single aad tahay, ma marriage aad tahay, ma divorce aad tahay. adii qaybtan waxaa gelinaysaa marital statuskaaga. tusaale aniga waxaan leenahay unmarried oo single aan ahay. qaybtan markaasaan usoo buuxisid. Okay, qaybtan kale wuxuu ku leeyahay number of children you have haddii ilmaha aa haystid. tusaale haddaa waxaan idin dhahay qaybtan waxaa ugu talagelaya qaybta single-ka ah oo maxaa lalahay qofka personalka ah. haddii family aad tahayna qayb kale waa insha allah iyadana waa soo samayn doonaa. iyadana waxaa waaye waa familiarka haddii axaad leedahay ilmahaaga wax hadda waa gelinaysaa. laakiinse hadda waxaa waaye qaybtan waa single waxaan leenahay 0 eberaa gelinaynaa. Okay, then markaa saa usoo dhammayno oo wax walba aan saan usoo buuxino oo maxaa lalahay sawirkeeni waqtiga aan dhalanay, waqtiga baasaboorka naga dhacayo aan saan usoo buuxino waxaan leenahay continue. then wuxuu ku leeyahay confirmation uu ku siinaya iska xaqiiji qaybtan magacaaga aabahaaga last name-kaaga middle name-kaaga genderkaaga birth of date city where you were born
adi everything marka uu ku soo celinaya waxa ku leeyahay iska xaqiiji oo uu ku leeyahay emailkaaga numberkaaga everything message addresskaaga marka saa u soo buuxino waxaan leenahay submit waa kaas marka saan u buuxino oo maxaa lahay submit garino success oo soo qoray then maxaa lagaga baahan yahay magacaaga iyo confirmation numberkaaga hadhow waxa ugu muhiimsan oo maxaa lahay oo adiga oo hadhow ugu muhiimsan oo aad u baahan tahay waxa waa confirmation numberkaaga oo numberkaas confirmationkaaga waxaa laga rabaa inuusan maxaa lahay oo kaa lumin oo maxaa lahay oo aad xidisid oo maxaa lahay numberka screenshot ka qaatid ama scale mail ku kidisid tusaale had screenshot ka qaadanayna waa kaas uu noo xareysan yahay waa kan screenshot ka qaatay oo intuu igu jira hadhow marka wixii maxaa lahay oo waqtigeed marka la gaaro oo koodkii waxa loo baahan yahay intuu igu jira so insha Allah qaybtan waa qaybtii single-ka saaxiibada waxaan rajeynayaa inay ka faa'iideysteen oo maxaa lahay qaybtan aan idin soo gudbiyo qaybtii single-ka insha Allah qof walba waxaan rajeynayaa inuu san u horeysan doono qof walba nasiibkiisa insha Allah best of luck